waxbarashadu waa mid laga maarmaan ah waxayna u sahashaa qofka nolol wanaagsan iyo inuu bulshada wax u qabto balse duruufta ayaa ah mid aanan u sahlaynin dad badan goobtan waxbarasho oo lagu magacaabo Global Deaf Madrasa oo ah goob ay wax ku bartaan dadka maqal la'aanta ah ayaa waxaa aasaastay Aamina Maxamed oo ah gabadh aanan si wacan u maqlin una hadlin balse isku xilqaantay inay wax barto ardada maqal la'aanta ah Sheekh Abu Bakar wuxuu ku takhasusay barashada diinta Islaamka iyo cilmiga tilmaanta ee cilmi dhagoodka wuxuuna soo booqday dugsigan asagoo cashiro barayay ardada maqalka naafada ah ee wax ka barata Global Deaf Madrasa Sheekh Abu Bakar ayaa warbixin kooban naga siiyay socdaalkiisa iyo sida uu ugu faraxsan yahay caawinta ardada uu wax barayay ويعني فتحت هذه المدرسة منذ حوالي سنة أو ما يقرب من عام ويعني جئت لزيارتها ويعني هذه المدرسة waxaan soo booqday madrasadan oo jirta ku dhawaad sanad si aan u baro luqadda Carabiga oo ishaaro ah si ay ardadu u fahmaan Quraanka Kariimka ah waana arrin ah dacwo barakaysan oo ay ka heleen macallimada Aamina هذه المدرسة الطيبة نعم waatan Aamina oo ka sheekeynaysa waxa ay barto ardada نعم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تاء ما شاء الله ما شاء الله جيم نعم جيم حاء حاء ما شاء الله هي يعني ما شاء isku soo wada duuba waxa aad u yar iskuulada gaarka u ah dhagoolayaasha guud ahaan dunida iyo dadka ayagu yaqaan luqadda ishaarada ee gaarka u ah dadka maqal la'aanta ah Xasan Mukhtaar Axmed Waayelka wararka STN magaalada Wajeer